qaatilkii New Zealand kontonka qof iyo dheeraadka nafta hore u dhaafiyey tii ku dhalisay wacdarihu halkaa ka dhigay waxa uu ka loxjitay buugga dhalan raggii weynaa kan uu isu duway ninka ugu xaq jirsan inta dugulka cad Camus qormo dheer oo ay isu duween rugcada xagga saxaafadda oo uu ku tolan isla wargeyska ayaa si ballaaran loogu faahfaahiyey in caw qaboobe ay dhinac waliba u martay kadib kolkii uu qaatilku fal u rogay intii uu Camus ku dhigay buuggiisii dhalan raggii weynaa isagoo la hadlayay saxaafadda ayuu ku dhiiraday inuu yidhaahdo wax mas'uuliyada oo iga saaran ma jiraan tan la xiriidha falkii uu geystay qaatilku intiinii akhriday dhalan raggii weynaa waxaa si cad uga cad bogaga hore ee buugga qormadii dheerayd ee uu sida halhaleelka isugu duway qaatilku ka hor intii uusan u qori qaadan gamkasiinta ummad wixii uu isugu soo baxay cishada salaadii jimcaha qaatilku sida uu qormadiisa ku sheegay waxaa walwalba ani ka hayay sidii qaar aan reer Yurub ahayni ugu soo duuleen Yurub oo ay weliba muddo 100,000 oo sano lagu sheegay u xukumayeen ninka cad ragga sida goonida u xusay qaatilku waxa kamid ah kan imika ka taliya France Macron oo uu ku sheegay in ay uurka uga guntan tahay in dadka kumaanka kun oo sannadood deganaa Faransiiska asisa dugulka madow dib loo raro oo halkii ay ka yimaadeen lagu celiyo tiyo laga yaabay ninka cad ee muhaajirka ah ee ka yimaada Yurub inteeda kale uusan wax culaysa ku hayn joogistiisa halka isagii oo isu muujinayay nin odaya oo ay ka go'an tahay in kala duwanaanshuhu meel mar noqdo tan la xiriidha dadeewa kale isirka duwan waxaase taa wax kama jiraan ka dhigay qaatilka oo ku tilmaamay Macron nin ay uur wadaag yihiin halkan waxaa xusid mudan in Camus qoraaga buugga dhalan raggii weynaa qudhiisa la xukumay sanadkii 2014 kadib kolkii lagu eedeeyay hal abuurka isirnacay baahsan oo bulshada lagu hanqariyo goorta waxa uu ku tilmaamay muslimiinta Yurub oo dhan in ay keebla Yurub yihiin oo maalin ay gaadayaan sidii ay ninka cad u boqna goyn lahaayeen wargeysku waxa uu qisadan urugada la ku afxiray inkastoo qaatilku uu yahay muriidka Camus haddana aragtidani waa mid soo jireena iyadii oo imika ay aragtidani dib u laba kaclayn bilowday haddana looma fadhiyo in ay ka soo rayso oo si dhan loo tirtiro kol haddii maalin cad la isugu soo gelaya goobihii cibaadada